dareenada ugu xanuunka badan dunidan in la dareemo waa inaad weydo qofkii aad si dhab ah isu jecleedeen, qofkii aad dadka isaga dhoweydeen, qofkii ku fahmi jiray, kula ciyaari jiray, kula kaftami jiray, qofkii ku ahaa wax kasta. waa xanuun inaad weydo, laakiin waxaan ku leeyahay samir iyo dulqaad muuji. waxaa laga yaabaa in ilaah uu kugu bedelo qof boqolaal jir ka wanaagsan qofkaas. waan ogahay inaadan ilaawi karin maalmihii wacnaa iyo weeraha xusuusta mudan ee aad isdhaafsateen, balse hadda isu beddelay xusuus iyo inaad u xiisto. iskiiji oo qof adag iska dhig. ha u oggolaan in murugadu ay qariso dhoolacadayntii iyo farxaddii lagugu bartay. waxaadna ismoogeysiisaa wax kasta oo ku saabsan inaad dhaawac uu ku soo gaaray ama aad murugaysan tahay. xasuusnow markasta inaad heli doontid qof ka wanaagsan qofkaasi ay noloshu idinkala geysay. qofkani aad helayso waxaad isla qaadan doontaan waqti ka qurux badan kii hore. maalmaha iyo nolosha ayaa markani kuu hiilin doonta inaad hesho waxaad u samirtay. marar badanna aad u dulqaadatay murugada iyo keli ahaanshaha. lahaw rajo, qalbigaaga ha ka jooji inuu wax u jeclaado si dhammaystiran oo dhab ah, waayo quruxda waxa ay ku jirtaa dhammaystirnaanta iyo dhab ahaanshaha.